ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله وحن بلا بينا موضوع عن قبل السنين كسر سنة عدد عرس كدعدي بريق دحي أنبا كدعدي منطقة لو يقانو خليجكا أو ودنها الدنيا المسلمة. دعداس بان مات إن شاء الله قبل السنين إن أنا هذا الله سيال آد أكل الدول أو سؤاله إلا تضبع عن سويدينه كدبنا عن كجوابنا إن شاء الله. لبا رمض بكون رسيليا أنت أنا موضوع أنجلين أردت هوري وحويان أرين النص وصعطون إني أرسيليا إن شاء الله تعالى. وحان نيشاga يا هدو إلى هاي لحظة إن بلادي دونو تضبط بشي مر إن شاء الله موضوع كصابسن إن أخرس أد وبضن إن شاء الله. موضوع وحنو بحني المنتدى الفكري أفكار عربية أفكار الصومالي جنا وقولها أقوم إسويدار سجا يو علمي إن باريستا إن وكلن بالله أو أن إسكول إيجي دونو إن كتب مركز قاركود وحنسل إيجي دونا كتاب كقرآن قف إن جميدة علومة دلك دجن أما مالها أن دوني ذا كمريو دلك دجن بان سل إيجينا قرآن كان إن أسلا آخرينه
isla fahano akhris istaraatiijikaale inaan qur-aanka saarno kitaabka ilaahay mararka qaarkood buugaan baa inoo yaalla halkan buuggan waan isla eegi doonaa casmi bashaara uu qoray buug uu qoray salmaan cawda oo idhaahdo as'ilada towradda buug la idhaahdo muwaatanada islaamku muxuu ka qabaa inuu qofku wadani noqdo buug maaragtay la idhaahdo isbedelka duruufta iyo sida shareecaddu ay axkaamta u bedisho waxyaalooyin fara badan baa inoo yaalla oo bilahaas la eegi doono buugaan ku qoran afka ingiliishka amba faranjiga yaan iyakana isla eegi doonaa oon u yeeri doonaa dad ku takhasusay culumta sayniska sociologiga iyo maaragtay dhinaca psychologicalka waxaas oo dhan insha allahu tacaala markaas mowduucaas waxaan rabaa inaanan insha allahu tacaala aan fadhiisano waxaa loo yaqaana salon fikri ah oo aan aniga iyo culimo kale iyo aqoon-yahano kale aanu ka sheekaysano insha allah bishii hal maalina la dhegeysto mowduuc aada u ballaadhan oo ku saabsan akhrista waxaan rabaa inaa sida wax loo akhriyo la barto sida buug loo soo khulaaseeyo sidaas maaragtay waxaan nahay ummaddii wax akhriska ummatu iqra inkastoo la dhaho iminka ummatu iqra baatat laa taqra anigu ma jecli sidaas ummaddii iqra wax ma akhrido laakiin waxaan jecelahay inaan wax isla akhrino insha allahu tacala mowduucaas baan bilaabi doonaa hadduu ilahay dhaho tabaaraka wa tacaala maraan dheerin okay insha allah waan kasoo laameynaa walaalayaal waxaan u fadhinaa maanta waxa weeyaan okay hadduu si fiican nii soo gaadhayo sawirka iyo maxaan ku dhahdaa codkuba waa soo sheegaysa insha allahu tacaala dadka khadka ku jira maaragtay si toosa inoola socda insha allahu tacaala okay waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo tabaaraka wa tacaala mowduuc ku saabsan sabo fiican tahay waxaan ka hadlaynaa sidii inoo qornayd qira'a waxaan ku sameynaynaa dhacdadii ka dhacday dilkii ninka la idhaahdo qaasim suleymani oo ahaa hogaamiye ciidamada loo yaqaano ilaalada towradda ee dalka iiraan amba alxaras athawri isla markaasina ka mid ahaa hogaamiyaasha waaweyn ee dalka iiraan oo maraykanku uu ku dilay diyaaradaha aan beelodka lahayn oo lagu dilay madaarka magaalada baqdaad ee caasimadda arlada ciraaq ninkaa dilkiisa oo keenay argagax caalami ah keenay argagax gobolka ka dhaca argagax dunida muslimka ka dhacda cabsi fara badan soo kordhisa dadkuna ay ku kala akhriyeen saddex aragti oo kala duwan aragtida koowaad waxay leedahay maraykanku markuu ninkaa dilayey wuxuu ugu talagalay inuu sameeyo inuu u sheego dalka iiraan ciyaartii ka dhaxaysay labadooda iiraan iyo maraykanka ee ahayd waan macnayn doonaaye inay kulmaan danahoogu oo mid walba danihiisa uu gaadho inay dhammaatay oo haddeeto wax dana ah oo maraykan iyo iiraan ka dhaxaysa aysan jirayn oo ay tahay inuu maraykanku albaabkaa soo xidhayo dad sidaasay u akhriyeen dad labaad waxay u akhriyeen inay tahay lucbad jiirka iyo bisadda ah oo weliba laysla ogyahay oo iiraan iyo maraykanku is yaqaanaan oo aysa siiyaan sida ay wax u ciyaarayaan marka iyaduna ay ka mid tahay un lucbaddii oo sii soconaysa dad saddexaadi waxay u akhriyeen inay arrintu intaas ka fog tahay oo ah inay iiraan iyo maraykanku dagaal xaqiiqiya uu ka dhexeeyo dagaalkaasina mid waliba uu rabo inuu barnaamijkiisa siduu u marsan lahaa uu ku dhaqaajiyo meesha tan markaa saddexdaa akhris yaa ka jirtay
markii adduunkoo dhan analiska iyo taxliilka la saarayay. sidaas daraaddeed waxaan jecelahay ikhwaani fillah inaan annaguna akhris ku darno saddexdaa midna aan ahayn. saddexdaa qiraa'aba waan dhegaystay aqoon-yahanada waaweyn ee maraykanka ah, xataa ragga jaamicadda harvard analiska ka sameeya waan dhegaystay. marka insha allahu tacaala waxay noo sheegeen inay akhristoodu ay tahay inuu maraykanku ka daalay lucbadda uu la ciyaarayay dalka iiraan oo uu rabo inuu qoorta qabto si ay isku dhiibto. qaar kale waxay ku macneeyeen inuu maraykanku rabo inay dalka ciraaq ay tahay weerar la mida weerarkii sadaam lagu qaaday oo digniintii ugu dambaysay la siiyey. qolo saddexaad oo maraykanka ah waxay arrinta ku macneeyeen in iiraan ay tahay risaalad loo tabiyo ah inay ka mid noqoto sistamka caalamiga ah ee maraykanku uu hogaaminayo. marka haddii soo geli weydana in duruus kale loo dhigi doono oo ay ugu adag tahay kuwa uu maanta soo saaray Trump. saas bay ku macneeyeen aqoon-yahano badan oo gaar ahaan gorgorada maraykanka, leanna maraykanka waxaa ka jira saddex akhris baa ka jirta. akhrista koowaad waxaa dhahdaa akhrista gorgorada, waa akhrista ay akhriyaan ragga maaragtay midigta iyo midigta fog, gorgoraa loo yaqaanaa. waxaa jira akhris labaad oo ah akhrista xamaamadaha oo iyakuna ah bidixda ilaa bidixda fog. iyakuna waxay leeyihiin Trump wuxuu ku ciyaarayaa dab ninkii ku ciyaarana wixii ka dhashay olola isaga ayay ololisaa. waxaa jira akhris dhexdhexaada oo qolada wasadka ah oonan midigna ahayn midig fogna ahayn bidixna ahayn bidixna fogna ahayn oo maraykanka ah. iyaku waxay qabaan akhristaasi labaduba inay khaldan yihiin oo ah in maraykanku sida uu u dhaqmayana ay sax tahay laakiin ay u baahan tahay inuu waxaan mar hore in la qabto ay ahayd. marka sidaas daraaddeed waxaan dhahaynaa akhrista maraykanku saas bay ahayd. reer galbeedka faransiiska, ingiriiska, jarmalka arrimaha iyakuna kama fogo, inahaas bay ag daaqayeen. akhriso kalea jirta oo wadanadan carabta ah. carabtu laba akhris baa taallay. akhris waxaa taallay mutadarifa oo carabtu ay qabaan dadka shiicada naca. waxay leeyihiin shiicadu waa gaalo yaryar, waxayna isdirirayaan gaalo waaweyn. gaal weyn iyo gaal yar hadduu isdiriro labaduba waa daalim. waxaa wanaagsan inuu ilaahay labada daalimba isku baabi'iyo, annakuna aan ka badbaadno. markaa casuumado bay dhigayeen, ay ku faraxsanaayeen in la dilo ninka la ydhaahdo qaasim suleymaani. qolo kale waa carabta ama waa muslimiinta shiicada ah. iyakuna waxay arkayeen in la dilay nin haliyey ah, dagaal shahaado ah oo ilaahay dartii loo galayo. marka iyakuna dhinaca kale jireen, waxay lahaayeen waa dagaalkii lagula jiray shaydaanka weyn iyo dadka adduunkan islaamka laaqaya. marka labadaa qolo waxay isku haystaan dagaalka siyaasiga ah oo akhristaas baa ka jirtay. laakiin akhris saddexaad baa jirtay oo dhexda ah. akhristaasina waxaa waday dadka aqoon-yahanka qaarkood oo lahaa war arrintu ma aha dagaal diiniya, ma aha dagaal ideolojiya, waa dagaal masiiriya oo ummadda bariga dhexe maxaa dhibaato ugu jiri karta, maxaana wanaag ugu jiri kara. in luqadaa lagu eego oo lagu akhriyo yaa ka fiican in lagu akhriyo luqadan waa cadow yar iyo waa cadow weyn iyo sidan ay u fikirayaan kuwa carabta muslimiinta qaarkood oo sunnidka u badan oo ta'siir iyo raad uu ku leeyahay sacuudigu, iyo qaar kaleeto oo shiico ah oo raad uu ku leeyahay dalka iiraan. waa laba qiraa'o oo labaduba xag jir ay yihiin. marka labada akhrisba waa laba akhris oo qaldan weeye. waxa weeyaan qiraa'aadku akhrisasku iminka wax la akhrinayo inta badan waa laba nooc markaan soo ururino. waxa weeyaan qiraa'o inaan la akhristeedu ay khaldan tahay. waxaa loo bixiyey qiraa'aadka marfuudka, kuwa aan la ogolayn in saa wax loo akhriyo. saddex nooc way u kala baxayaan. kow waa qiraa'adda caatifiga ah, waan jecelahay iyo waan necebahay. siyaasaddu maaha jamciyad khayri ah, maaha meel samafala, maaha bienfaisance, maaha urur samafala. siyaasaddu waxa weeyaan waxay leedahay qiraa'o waxaas oo dhan, akhris waxaas oo dhan ka duwan. saa daraaddeed waan jecelahay iyo waan necebahay dariiqaas kuma jirto. wuu ila jiraa, waa ka soo horjeedaa, maaha. siyaasaddu waxa weeyaan waa wax mawduuciya, waa inaad akhridid waxan sida uu yahay loo akhriyo weeyaan. marka taasi waa midda koowaad, waa qiraa'adda akhrista caatifiga ee laabka hadalka ah.
qiraa'o labaad baa jirta waa akhrista ideolojiga ah nin walba markuu wax akhrinayo ideolojiyadiisu ku akhrinaya sunnuhu waxay rabaan qaarkood inay shiicada cadow weyn ka dhigaan si u idishoo dhan shiico oo dhan ba cadow ka dhigaan shiicaduna waxay rabtaa inay maaragtay wixii iyada kasoo horjeedo dhan sida ay suuriya ka yeeleen inay ku burburiyaan iyo jajabiyaan marka taasina waxa weeyaan waa akhris ideolojiya waa caqiim waa madhalays weeyaan macna ay ku fadhida male qiraa'ada saddexaad ee marfuudka oo la ogolayn waxa weeyaan qiraa'adu marka aynan lahayn aynan ku akhrinayn qiraa'a sunaniya marka aad ka dhaqaaqayn waxyaalada ilaahay kownka dhigay ee ah siday wax u dhacaan had iyo jeer in wax lagu akhriyo maadaama aad sunankii adduunkan habka uu socdo systemka uu socdo aad akhrin karayn oo mawduuci aad ahayn waxa weeyaan yadna waa qiraa'aadka qaldan bay ka mid tahay marka taasi waa midda koowaad weeyaan midda qiraa'ada loo baahan yahay waxa weeyaan waa ta aan akhrista loo baahan yahay waa akhrista aan isleeyahay waa ta ku salaysan iyaduna laba arrimood oo amba laba rakiiso amba labo saldhig le weeyaan akhris laba saldhig le weeyaan arrinta koowaad waxa weeye walaalayaal arrinta ah marka aan wax akhrinayno inaan ku akhrino indho ballaadhan indho wax walba arkaya oonan waxyaalada qaar uun aan arkayn marka taas waa midda koowaad weeye midda labaad waa inaan ku akhrino il istraatiiji ah marka aan wax akhrinayno waa inaan akhrinayno waxa jooga iyo waxa soo socda iyo waxa soo socdoon saddex u kala qaybino waxa dhow ta dhexe iyo ta dheer akhrista noocaasa inaan leelano waa muhiim weeyaan walidaalika suuradda aan ku furtay suuratu ruum dadku waxa u yaqaanaa suurad ka sheekeynaysa dagaalkii dhex maray bershiyanka iyo roomka laakiin waa suurad ina baraysa inaan yeelano caqli istraatiijiya inaan yeelano maan iyo maskax inaan yeelano afwan bismillah inaan yeelano caqli iyo maan iyo maskax istraatiijiya oo markay wax akhrinayso waxa jooga iyo waxa soo socdaba arkaysa walidaalika ilaahay aayadda suuradda wuxuu ku bilaabay markuu nebigu maka joogay ay ahaayeen mustadcafiin la itaal yaraystay oon dunida awood ku lahayn haddana waxay ahaayeen dad adduunku siduu u socdo la socda dagaal baa ka dhacay hareeryahooga waxaa isku haleelay awooddii weyneyd ee loo yaqaanay bershiyanka amba furs oo waddanadan iiraan iyo ciraaq xukumaysay iyo awooddii weyneyd ee romaagi yaa ishaleeshay halkaa markii laysku galay waxaa adkaaday fursigii oo bershiyankiibaa ka adkaaday romaagii amba ruum ka adkaaday quwaddii weyneyd ee room loolan jiray marka ilaahay warkaas buu ka warramay oo wax dhacday waa dhacdo wuxuu yidhi alif laamiim gulibat ruum waa laga adkaaday ruum waa la jebiyey ruum dagaalkii caskariga ahaa ee dhex maray iyada iyo awooddii furs waxaa lagu jebiyey ruum gulibat arruum okay waa kow wuxuu ka warramayaa waaqic waa reality qur-aanku halkee lagu jebiyey buu ka hadlay fii adna alard wuxuu yidhi meesha juqraafi politig ahaan juqraafiya siyaasiya lilmacraka dagaalku meeshuu ka dhacay waxay ahayd baxrulmayid baddan loo yaqaano meekmookh badda dhimatay baddaas baa dagaalku agtiisa ka dhacay fii adna alard waa meesha ugu dhow dhulka carabta jasiiratul carab dhulka juqraafigiina iniigu dhow ayuu dagaalkaasi ka dhacay fii adna alard ay aqrabu mawqicin lijasiirati alcarab kow waa arrintii labaad ilaahay wuxuu yidhi mid saddexaad buu sheegay wuxuu yidhi wahum min bacdi ghalabihim sayaglibuun wuxuu yidhi kadib marka laga adkaadayna way adkaan doonaan xarfu siin attanfiis yufiidu lmustaqbal dagaalkan roomaagu waxay adkaan doonaan mar labaad dagaal baa dhici doona dagaalkaa dhici doona iminka weli ma dhicin uu dhici doonaa dagaalkaana waxaa adkaan doona roomaaga iminka waa laga adkaaday meeshii laga adkaadayna uu sheegay saddex muxuu qur-aanku sheegay dagaalka mustaqbalka inuu dhici doono uu ka dhici doono meeshaa un laakiin ay adkaan doonaan romaagu wuxuu qur-aanku sheegay goorbay adkaanayaan fii bidci siniin dhowr sano dhexdooda 3 ilaa 9 sano macnaha dagaalkaas wuxuu dhici doonaa mustaqbalka dhow oo ka dhigan 3 sano ilaa iyo 9 sano dhexdooda bidci afka carabiga waa intaas weeyaan
dhowr sano dhexdooda wayaan don fii bidci siniin ayuu dagaalkaasi dhici doonaa idan mustaqbalkii baa la sheegay waqtigiina waa la xadiday marka uu dhici doono haddana 4 waxaa la sheegay 5 lilaahi alamru min qablu wa min bacdu adduunkan waxa ka dhacaya yaa gacanta ku haya waxaa jira nadariyad tiraahda bini aadanka ninba ninkuu ku xugun yahay buu awoodda gacanta dhulka ku hayaa iyo awood tiraahda aragti tiraahda kownka ilaahay baa wada laakiin bini aadankana wuxuu siiyey inuu ku ciyaari karo marka ilaahay wuxuu leeyahay amarkii horena anaa iska lahaa amarka dambana anaa iska leh lilaahi alamru min qablu min bacdu 6 wa yowmaidin maalintaas uu roomaanku ka adkaan doono bershiyaanka yafraxu almu'minuun mu'miniinta farxi doona waa su'aal cajiiba ayaantaa muslimiintu way farxi doonaan maxay u farxi doonaan 2 arrimood daraaddeed 1 roomaanka oo kristana oo caqiide ahaan muslimiinta u dhow baa ka adkaan doona bershiyaanka oo mushrikiina oo caqiide ahaan quraysh u dhow macnaha labaad ayaantii ay dhacday dagaalkaas roomaanka iyo fursiga dhex maray wuxuu dhex maray dagaalkii beder baan dhacay isla maalintii wa yowmaidin maalintaa mu'miniintu waxay ku farxayaan nasriga ilaahay tabaaraka wa tacaala okay halkan markaas maxaa inoogu jira duruus waxaa inoogu jira 2 darsi oo muhiim ah darsiga koowaad waxa weeye waxa hareeriyahaaga ka dhacaya inaad la socotid maxaa yeelay wuxuu taasiirinayaa adiga dhexdaada dagaalka ka dhacaya bariga dhexe wuxuu taasiirinayaa geeska afrika dagaalada geeska afrika ka dhacaya waxay taasiirinayaan bariga dhexe maxaa yeelay adduunku waxaa ka dhexeeya waxa dhahdo tadaakhul isgalgal tashaabuk gacan islahayn iyo cadamu tawsiic inayna kala bixi karin markaas maadaama aana la kala bixi karin oo la isku dhex jiro waxaa muhiima inaad qiraa'ada waaqica hareeryahaaga inaad akhridid inay muhiim tahay arrinta labaad waxa weeyaan waxaa ku jira inaan aragtideenu ayna noqon maanta oo ay noqoto berito sahan dambe iyo saakuun macnaha inaad akhridid mustaqbalka dhow ka dhexe iyo ka dheer sida uu qur-aanku inoo barayo 2 arrimood baa inoogu jira qiraa'adan arrin kale waan kala soo bixi karnaa aayadaha qur-aanka waxaan kala soo bixi karnaa inaan ilaahay ilaawin tabaaraka wa tacaala awooddiisa lilaahi alamru min qablu wa min bacdu ilaahay baa adduunka horena u lahaa gadaalna leh marka inaan noqonno dad rabbaaniyiina markaan akhrinayno nolosha in taariikhda iyaduna waa muhiim weeyaan walidaalika ayuha alikhwa waxaan rabaa inaan maanta aan akhrino dagaalkan dhex maray iiraan iyo maraykanka oo sal ku lahaa 3 arrimood oo dadku inta badan ay indhaha ku hayn dagaalkan maaha qaasim sulaymaani in la dilay maaha dagaalkan inuu keenay maalintii qaasim la dilay inuu bilaabmay may dagaalkan wuxuu bilaabmay markii shirka lagu qabtay magaalada alriyaad ee caasimadda dalka sacuudiga ee uu u yeedhay madaxweynaha la oran jiray boqorka salmaan oo iyo trump ay wada qabteen shirkii weynaa ee lagu qabtay magaalada riyaad ee caalamul islaami oo dhan loo yeedhay shirkaa waxaa lagaga hadlay 3 arrimood inay dhaqaaqaan 1 waa inay dhaqaaqaan in iiraan lagu rido in iiraan la cunaqabataynta lagu adkeeyo 2 in safaqatul qarni wax loo bixiyey oo qadiyadda Palestiin lagu dhamaynayo inay hirgasho 3 arrinta saddexaad ee muhiimka waxa weeye in la bilaabo dowlad cusub dowladdu waxa weeyaan socod cusub oo lagu xadidayo dadka la oran karo waa irhaabiyiin iyo dadka aan ahayn irhaabiyiin inay Trump iyo Salmaan iyo Maxamed bin Salmaan iyo Maxamed bin Zayed isla xadidaan iyo terrora iyo argagixiso ah iyo si argagixiso aan ahayn arrinta dagaalkaas marka uu bilaabmay dagaalkaas waxaa loola jeeday 3 qolo ee loola jeeday wuxuu ahaa 1 Iiraan 2 wuxuu ahaa islaamka siyaasiga ah ama ururada islaamiga ah 3 Turkiga iyo Qatar iyo dowladaha aanan soo hoosgalayn arrintaas baa loola jeeday arrintaas marka haddii lagu guuleysto waxaa la bilaabayay marxalad labaad oo ah inaa la galo dagaal loogu talagalay midii la diyaarinayay arrintaas waxay keensatay in safaqatul qarnigiina ay fashilanto
oo ay fashiliyaan laba arrimood oo waaweyn. kow, diidmo ay diideen shacbiga falastiin siduu u idil yahay. laba, inay diideen madaxda falastiin say u idil yihiin, hadday yihiin kuwa adag iyo kuwa jilicsan se loo yaqaano gorgorada iyo xamaamaduhuba intuba way diideen. marka taas waxay noqotay qadiyad fashilatay. arrinta labaad waxa weeyaan irhaabkii dadka qaarkood lagu shaabadeeyey iyaduna way socon weyday. waxay noqotay wax maraykanka dadka caqligalana ay aqbali waayaan, ingiriiska laga aqbali waayo, milyaaro lacaga lagu bixiyey in la qoro dad qaarkood inay yihiin terroristi. markay socon weyday, kanada ka socon weyday, dowladaha yurub ay ka socon weyday, iyadana waxay noqotay arrin fashilatay. arrinta saddexaad waxay noqotay dowladihii la weerarayey inay bilaabaan inay noqdaan kuwo malaad ah oo lacagihii wadanada carabtu ay ku baxsadaan. sacuudiga intaasoo milyaar baa ka baxsatoo turkiga tagtay, kuwait iyo maaragtay qatar iyo baxriin iyo carabtoo dhan intaasoo milyaar baa ka baxsatay oo kuwait tagtay. waxa ku soo noqday maamulkii dalka malaysia, mahaatiir iyo anwar ibrahim baa heshiiyey, iyadiina isbedel baa ka dhacay istaraatiijikala. wadano fara badan oo muslimiina baa yidhi annaka waxaa moodel noo ah raggaas. qatar cunaqabatayntii lagu sameeyo arrinta ka dhalatay iyo iyaduna fashilantay. waxaas oo dhan markay fashilmeen, waxa weeyaan iiraanna waxay bilowday inay awooddeedii bariga dhexe ay ku lahayd ay sii adkayso, ay sii dhisto. marka arrintii magaalada riyaad ka dhacday ee la iskugu yeedhay way fashilantay. fashilka waxaa sii fashiliyey dagaalkii lagu qaaday dalka yaman. dalka yaman dagaal culus baa lagu qaaday. dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal loogu talagalay in 6 ilaa sanad ay ku dhammaato oo magaalada maarata waddanka yaman sacuudiga iyo imaaraadku ay gacanta ku dhigaan, laakiin iyaduna way fashilantay. waxaana fashiliyey laba arrimood. kow, waxaa fashilisay iiraan oo hore ugu sii samaysatay awood ambaba gacmo iyadoo ay ku leedahay meeshaas oo ugu horeeyo xuusiyiinta amba ansaarullah ninba siduu u yaqaano. labo, waxaa fashiliyey arrintaas imaaraadka iyo sacuudiga oo kala shaqaynaya. imaaraadku wuxuu ka fikirayaa inuu kala gooyo koonfurta iyo waqooyiga, awoodna uu ku samaysto siyaasadiisii ahayd ee iyadna fashilantay inuu maaragtay xeebaha badda cas oo dhan uu gacanta ku dhigo ayuu watay. baynamaa sacuudiguna siyaasadiisa oo noocan ahayd watay ee trump kula soo heshiiyey. arrintaasina way fashilisay. marka quwadda ugu weyn ee dalka yemen waxay noqotay quwadda iiraan bay noqotay. marka waxaan ka hadlaynaa maanta waxa weeyaan fashilaadaas waxay keentay in ay maraykanka aad uga codsadaan wadanadii saaxiibka la ahaa, xulufada ahaa, inuu tallaabo u qaado cala alaqal haybadooda ilaalisa, inuu maaragtay iiraan walow caskariyan uu weeraro. arrimahaasi way dhici waayeen. dhowr jeer baa wax badan ay dhaceen, laakiin arrintaasi way dhici weyday. markaa si uu cala alaqal uu u tuso in uunan maraykanku ahayn dowladda lala ciyaaro, ayay qaraarkan adag oo dadka qaarkood ay leeyihiin qaraar siyaasadeed ma ahayn, wuxuu qaraar misaajiya maskaxda trump bay ku dhalatay. walidaalika trump waxaa dhahdaa maaha nin la filayo waxa uu samaynayo lasii garan karo. waa nin mararka qaarkood waxyaalo mustaxiil sidaan qoray mar sameeya siyaasiyan uu samayn karaa, halka caskariga ana wax mustaxiil ah. ikhwat aliimaan, hadda walaalayaal, waxa aan intaas uga jeedaa waxa weeyaan inaan akhristeennu aynan noqon akhris ilowda dhacdooyinkana ku xidha dhacdooyinka kale, dhacdooyinkana ku xidha afkaarta ka dambaysa. maxaa yeelay waxaa iminka laga sheekayaa dagaalka dunida ka socdaay waa 3 nooc weeyaan. dagaalka adduunka maanta ka socdaay waa 3 nooc. kow, waa xarbul afkaar, waa dagaal maskaxeed, waa iideeyo. waxaa la isku dirirayo, waxaa la abuurayaa mustalaxaad iyo kalimaad iyo hadallo nala kabisiinayo oon cabayno oo kadibna aan iska sheekaynano oon moodayno inaan iska sheekaynano. waxaan waa naloo dhiibin. maxay ka dhigan tahay idaacad BBC la dhahdo oo af Soomaali ku hadasha, oo af Faransiis ku hadasha, oo af Ingiriis ku hadasha, oo af Beerish ku hadasha, oo Sawaaxili ku hadasha, oo Carabi ku hadasha, oo dunida oo dhan la hadasha, oo Pushto ku hadasha, oo caalamka oo dhan Urdu ku hadasha, oo caalamka oo dhan la hadasha. ilaahay dartiiba may waxa weeyaan xataa kuwa idaacadda ka warramay ma fahmi karaan. idaacadda way ka warramaan, laakiin idaacadda dabadeeda daahiyada kasii dambeeya waxaa fadhiya dad istaraatiijiyiin oo loogu talagalay inay caqliga caalamka ay sameeyaan si uu caalamku u noqdo caalam la maamuli karo. CNN macnaheedu kama dhigno idaacad fi sabiilillah u shaqaynaysa, kama dhigno France 24, waxaas oo dhani kama dhigno idaacada la iska sameeyey.
sida ay jaziira aynan u ahayn idaacad layska sameeyey amba carabiya aynan ahayn idaacad layska sameeyey waxaa loo sameeyey dagaalka maskaxda xarbul afkaar waa kow weeyaan maanta dunida aan ku nool nahay waxaa ka socda dagaalkii afkaarta dagaalka labaad waxa weeyaan xarbul masaalix waa dagaalkii danta dadkan danaa isku haya rag maxaa mideeya hunguri rag maxaa dagaal colaysiisiyana waa hunguri waxa weeyaan dagaalku waa dagaal dhaqaale weeyaan waxa la isku hayo waxa weeyaan waa nufuud iyo nufuud goormana waa dagaal dhaqaale ka labaadina waa masaalix dan baa la isku diraya maraykanku dan buu leeyahay waxaan arki doonaa inta qaacido uu adduunka ku leeyahay bas militara waxaan arki doonaa inta dowladuhu ku dhex leeyahay waxaan arki doonaa inta ciidanka uu adduunka uu ku baahiyay inta yihiin macnahaasi maxay ka dhigan tahay waan isla arki doonaa arrinta saddexaad dagaalka dunida ka dhacayay waa xarbun siyaasiyun waa dagaal nufuud ah anaa igama cabbi kartid iyo waa kaa cabbi karaa waa la isriixayaa waa la is eryayaa waa la isku soo durkayaa dagaalkaasi sidaas buu socdaa ruushya maraykan iyo china iiraan iyo maraykan maaragtay turki iyo maaragtay maraykan waxaan oo dhan waxaa la isku diray waa waxweeyaan waa nufuud waxaa la doonayaa rasmu lmustaqbal mustaqbalkaa la sawirayaa kayfa akuun mataa akuun walimaada laa akuun maxaan u noqon waayi maxaa iga celinaya inaan wax noqdo baa la isku hayaa marka dofku waa inaad fahantid dagaalka imika dhacaya makii afkaarta makii danta makii siyaasadda makii isku wada jira waxaasoo dhan dagaalkan maanta dhacayna waan macnin doonaa makii fikirka makii siyaasiga makii waxa weeyaan masaalixda ah okay ikhwaani fillah inta aanan u gelin dagaalkan haddana waxaan rabaa inaan sheego maraykan iyo iiraan haddaan isbarbar dhigno ciidan ahaan isku mid maaha laakiin haddana waxaan eegi doonaa maxay iiraan haysataa ay maraykan kaga cabsiin kartaa muxuusan maraykanku haystaa isagu wax badan buu haystaaye uu kaga cabsiin karaa iiraan waa marka koowaad horta waad ogtihiin dhinaca haddaan eegno ciidanka labada ciidan iskuma dhowo ciidanka adduunka ugu horeeya oo ciidamada dunidoo dhan aad ugu xoog badan baa maraykanku iyaduna waa dowladda sideedaad dhinaca quwadda caalamiga ah yacni waa saamina caalamiyan waa dowladda sideedaad caalami ahaan maraykankuna waa dowladda koowaad adduunka maraykanku ciidankiisu waa 1,400,000 kun oo ciidana isagoo haystana 1 milyan oo ciidana oo kuwa maaragtay ixtiyaadiga ah amba maaragtay loogu talagalay reserfiga ah ee loogu talagalay marka loo baahdo in loo yeeri karo maraykanku wuxuu maaragtay haystaa 750 qaacido ama baas oo caskariya iyo adduunka ku leeyahay 130 dowladood buu dhex fadhiyaa 750 dowladoodna wuxuu ku leeyahay qawaacid amba baasas militeer oo caskariya iyuu ku leeyahay baynamaa iiraan ay tahay ciidankeegu 554 oo ciidana ay tahay 90,000 waa ciidanka loo yaqaano ilaalada towradda ciidanka alqudus uu ninkani xukumayay 18,000 weeyaan intaas waa dhinaca ciidanka weeyaan marka waxa u dhaxeeya waa haa'il isku dhow arinta labaad iiraan waxay leedahay 479 diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah halka maraykanku ka leeyahay 13,440 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iiraan waxay leedahay 1,658 dibaabadood amba dibadaha dagaalka halka maraykanku ka leeyahay maxaa ku 9,000 oo dibaabadood maraykanku uu ka leeyahay marka dhinacaasina waad arkaysaa farqiga u dhaxeeya inta uu u sii durkayo uu sii leekaanayo halka haddaad u imatid maxaan ku dhahdaa ciidanka badda maraykanku waxa uu leeyahay wax ka badan 430 dooni oo dagaalka ah oo 20 ay yihiin kuwa diyaaradaha xambaara iiraaniyiintuna waxay leeyihiin 4,000 oo qitac amba dooniyeer yar oo kuwa badda ah waxa ayna leedahay dowladdaasi ay kaga horeysaa adduunka oo dhan kuwa quuso oo aad u badan oo halis gelin kara xataa maaragtay maraakiibta aadka ool culus ee waaweyn maraykanka iyo iiraan waxay isku soo dhowaadaan marka laga hadlayo miisiilada ama madaaficda meelaha dhaadheer gaadha iyo meelaha dhexe waa laysku soo dhadhowaadaa wax badan bay leedahay iyadoo weliba qarsoon tahay inta iiraan ay haysato maxaa yeelay waa dowlad cunaqabatayn lagu hayo dhinaca caskariga ah dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda iyo dhinac walbaba oo hoos u shaqaysa oo isdhista weeyaan marka arrimahaas marka aad eegtid waxay leeyihiin
30,000 oo jeer bay dowladda maraykanku ku xoog badan tahay dalka ciraaq. waxa iiraan waxay dhahdaan su'aal bay isweydiiyaan culummada taxliilka caskariga saara: ma qabsan karaa maraykanku iiraan? yacni ma ka adkaan karaa? maaha, ma ixtilaali karaa? gacanta ma ku dhigi karaa? ma ka adkaan karaa? iyada waa laga imanaya. ma qaban karaa? waxaa ka dhashay 2 arrimood: haa, maya. haa marka la dhahdo waxa weeyaan haddii uu hubka ugu dambeeya ku ao oo uu awood tiro wuu qabsan karaa, laakiin qabsigaasi ma noqonayo miduu ku nabadgalo. taasi waa midda koowaad weeyaan. midda labaad maya baa la dhahdaa. maxay dhahdaa? duruufta ku meersan iiraan waa duruuf aan ogolaan karin in iiraan la qabsan karo. marka labaduba way taallaa: lamana qabsan karo, waana la qabsan karaa. laakiin ma laga adkaan karaa? iyadu waa haa, maraykanku uu ka adkaan karaa dalka iiraan. okay, waxaanu imanaa markaas dowladdan la dhahdo dowladda iiraan maxay haysataa awood ay iskaga maaragtay difaaci karto dalka maraykanka? horta waxaan isweydiinaa dowladda iiraan maxay tahay? maxaa keenay brobleemka iiraan? iiraan waxaad ogtihiin waa dal ku yaala bariga dhexe. waa dal 3 arrimood isku darsaday. kow, waa dal dadkiisu 80 malyan oo qof ay yihiin. 80 malyan oo qof waxay waa dad aad u tiro badan. 2, waa dadka degan ay yihiin muslimiin shiica ah inta ugu badan. sunnana way degan yihiin, dad kale tara way degan yihiin. 2. 3, waa dad asalkoogu yahay Persian, xadaaradii weyneed ee Fursiga ayay leeyihiin. marka 3 shay dalka iiraan xagga cirqiga waa Persian, xagga diinta waa muslim shiica ah, halka juqraafigana bariga dhexe ayay ku yaalliin. arrinta kaleeto 2 arrimood baa arrimaha u dheer. iiraan waxa weeyaan waa dal uu ka dhacay revolutionku waxay ka tahay towrad kacaan baa ka dhacay iiraan. kacaankaas waxaa ka dambeeyey 2 arrimood. kow, wuxuu ahaa kacaan dhaqaale. dadku intay gaajoodeen iyay kaceen. wuxuuna ahaa kacaan ay hogaaminayaan dad aqoon-yahan iyo wadaadda ah. kacaanka waxaa sameeyey aqoon-yahankii weynaa ee loo yaqaanay cali shariicati, allah yarxamo, oo ku ta'asuray fikirkii culummadii ikhwaan muslimiinka ee nooleed 50 iyo 40. ninkaas baa fikraddan balwareeyey, laakiin waxaa qaatay oo si u qaatay tawri ah wadaadkii la oran jiray ayatullah al-Khumeyni oo geeriyooday ka dambaystay markuu waddanka qabtay. marka wadaadkaasi oo France fadhinayay ka horna Ciraaq fadhinayay ayaa ku guulaystay inuu u bedelo afkaartii cali shariicati afkaar shicibka iiraan la waraabiyo oo lagu waraabiyo mashruucii loo bixiyey mashruucii cajaladaha. cajaladuu soo duubayey, waddanka iiraan baa loo soo dirayey, dadka iiraan baa dhegaysanayey. kadibna dadka iiraan way ku kaceen, waxayna noqotay cajaladihii kiciyey shacbiga weyn ee shacbiga reer iiraan. okay, 1979kii dalka iiraan waxaa ka dhacay revolutionka uu ku tilmaamay Roger Garudi, mufakirka weyn ee Faransiiska ah, ilaaha u naxariisto. 3 towradood baa dhacay qarnigii 20aad oo dhammaantood ay yihiin towrado xaqiiqiya oo isbeddel xaaladda dunida ku sameeyey. wuxuu yidhi towradda koowaad waa towraddii balshafiga, waa towraddii shuuciyadda ee ka dhacday ruushka. towradda labaad waa towraddii Chinaha ee ka dhacday iyada shuucibaheeda ka dhacday Chinaha. towradda saddexaadna waxay ahayd towraddii Iiraan ka dhacday oo ay isbeddel radikaala ku samaysay systemkii dhannaa ee boqortooyada ee waddanka Iiraan ka jiri jiray. waxaan u baahannahay markaa arrinta koowaad ee 3dii arrimood noo dheer wax weeyaan iiraan mandiq baa ka jira, logic baa ka jira ah. towrad baa iiraan ka dhacday, towradduna way guulaysatay. kadibna waxay noqotay towraddii dowladdiina waxay tabaniday fikirkii towradda. marka waxaa laysku dhisay dowladdii iyo towraddii. laakiin mucjisadu waa maxay? waa arrinta labaad. arrinta labaad wax weeyaan ayatullaahi Khumeyni waxaan anu ku tilmaamaa inuu yahay ragga adduunka ugu curis waaweyn. maxaa yeelay wuxuu xal u helay fikrad shiicadu ay xal u weyday 1000 sannadood. 1000 sannadood bismillahi raxmaan raxiim 1000 sannadood shiicadu waxay doonaysay inay xal u hesho fikirka ah sidee dowlad shiica ah oo islaamiya loo dhalin karaa. arrinta xal waa loo waayay. maxaa keenay? waxay aaminsan yihiin aqlabu shiicada inta ugu badani inuu imaamkii qaybo galay, inuu qarsoonaaday, imaamkii 12aad, in ay waajib tahay in la sugo. marka uu soo baxana imaamkaasi uu hogaamin doono dunida muslimka.
mahdiyi almuntadar baa mahdiga la sugayo marka intuu ninkaas soo baxayo dowlad islaam oo shiica ma dhalanayso marka shiicada marka maxaa ku waajiba inay kolba dowladii dhalata ku hoos noolaadaan tuqyana isticmaalaan oo maartay saaska ahaadaan wuxuu markaa keenay ninkani fikrad cusub oo oranaysa sidee baan u keennaa dowlad islaamiya shiica ah casri ah waqtiga noolaan karta dimuqraadiyad xambaari karta afkaartii shiicadana sidii karta isla markaasina sugsiin karta intuu mahdigu soo baxayo si caqiidada shiicada loo waafajiyo marka wuxuu keenay systemka iiraan maanta lagu xukumo iiraan waxaa maanta ay tahay dowlad istisnaa'iya waxaan ugu bixiyey waa dowlad exceptional waxay ka duwan tahay dowladaha dunida ka jiro dhan dowladaha dunida ka jiraayay waa laba dowladoodu amba waa dowlado boqortooyo ah amba waa dowlado jumhuuriya iiraan ma aha boqortooyo mana ahina jumhuuri macnaha ma ahayn boqortooyo way baabisay shaahi bay ka takhaluseen mana ahina nidaam republicana oo jumhuuriya boqolkiiba boqol maxaa iiraan dooratay iiraan waxay dooratay system iyadu ay keentay oo ibdaaca systemkaasi muxuu yahay waa inuu jiro nin wadaada oo matelaya towradii waa laba isla markaasina sii sugsiinaya xukunka inta uu soo noqonayo mahdiyi saddexdaa shay baa la isku keenay ninkaasi waa ninka loo bixiyey almurshid الروحي جيدك نينكا هجامينيا وطنك عروس الدوشة كايستا آية الله الخميني كدبنا آية الله علي الخمائني إيميكا وأصد حارم أوكي حدانا إسلام مركا دولة سعود كيغانا وإن دورشا لغو صوت دورتو إيا دورانيا وحا دورانيا شئبكا مركا إيا دورانيا ضد بدن بالو صوت بندقيا أو إمام كاسي أورالي كياي قفكا أو دورتان بار نقونيا مدحويني حقي إمام لكي دولة دنا ساسو نقونيا وإلا سمية برلمان كاس وإلالنيا دستور كوطن كو إسلامية إيا الشعب كان إلالنيا دنوهوغا دقالوهوغا نكاشقينيا صدح شان وحالة سمية نظام الرادو مصلحة النظام كإيران وقولة تشخيص النظام الرادو حق الضمير فرديان داها الدبديسة وأقويها وعلماء وسياسيين وعسكر وميلاتير دنت وطن كإيران إسلامي إيا إيرانيان قولة السنة حق الضمير فرديان ودات كان أوابا waxaas oo dhan waxa loo sameeyey kuwii ilaalinaya hubka oo xaraskii sawriga ah waxaa la sameeyey waxyaalooyin kale oo aad u fara badan oo waqtigu noo saameeyay marka dowladda Iiraan waa dowlad dimuqraadi marka laga eego dhinaca doorashada waa dowlad tiyuqraad oo diini ah marka laga eego wadadka dusha ka wada haysta haddana waa dowlad casriga nool oo casrigii la socota oo modernation haddana waa dowlad turaasiya oo turaaskoogii iyo shiicanimadooda ilaalinaysa haddana waa dowlad isku keentay wixii dadku aaminsanaayeen ay sugayeen iyo wixii la sameyn karayay oo ah in maaragtay la keeno xal marka waa dowlatul xal waa dowlad xal u heshay fikirkii shiicada marka arintaas waxaa keenay wadaadka ayatullahi al-Khumeyni loo yaqaanay markaas marka dowladda islaamka Iiraan macnaheedu waa sidaas weeye okay dowladdan Iiraan ma saxba ma qaldan tahay anaka problem inoo yaala maaha anaku haddaan nahay dad ahlu sunna wax badan baa ku khilaafsanahay dowladda Iiraan wax badanna waa isku waafaqsanahay laakiin taas imika casharkeenu maaha casharkeenu waa dagaal dhex mara iyakiya maraykanka su'aal baan isweydiinaynaa dowladda Iiraan ee arane awoodda ay leedahay maraykan ma la dagaalami kartaa maxay fursad haysataa maxay yihiin dhibcaha xoog ah ay haysato diqaadul quwa maxay tahay dhibcaha dacfiga ah ee taalyarada ah ay dowladdani la taahayso waa inaan arrimaha aan ka jawaabno si aan u garanno dowladda Iiraan ma dagaalami karaysaa horta dowladda Iiraan waxa weeye waa dowlad ay xukumaan institutiono maaha dowlad uu xukumo ina yar sida Maxamed Salmaan amba Maxamed bin Zayed amba maaragtay qabaa'il ay xukumaan reero amba ay xukumaan la rado reero amba koox ay haystaan maaha waa dowlad institutiona waa dowlad imaamado rag ah ay ku jiraan khubaro ay ku jiraan siyaasiyiin ay ku jiraan rag dhaqaale ay ku jiraan dad aaminsan awoodda Persianka ay ku jiraan dad islaamka ku qanacsan islaamka akhristuda shiicada ay ku jiraan marka waa dowlad saas oo kaleeta oo institutional leh oo maaragtay mu'assasad leh dowladdaasi quwadeeda koowaad horta waa maxay waa fikirkeega weeyaan xarbul afkaar soo ma lahayn waa dowlad fikir leh dowlad fikirkeegii sida Sacuudiga iska saartay maaha waa dowlad fikirkeegii ku meeratay sidata mashruuceega sidata marka khudbadii uu akhrinayay xalay toole wadaadku markuu la hadlayay shicibka waxaad arkayseen inay ahayd khudbad fikirka shiicada islaamka quraanka maaragtay waxaas ka jawaabaysa ay tahay dowladda quwadeeda koowaadi waa caalamul afkaar
quwadda labaad ay leedahay waa maxay inaa fikirkan bariga dhexa lagu fidiyo kadib marka la fidiyana mashruuc loo bedelo iiraan waxay ku guulaysatay inay fikir leedahay fikirkiina inay mashruuc u bedeshay mashruuciina inuu noqday wax shaqaynaya matalan iiraan waxay leedahay gacmo waaweyn oo bariga dhexa yaalla gacanta koowaad ay iiraan leedahay waxa weeyaan waa waddanka suuriya dhacdo waddanka dhan ee suuriya iiraan way qabsatay marka suuriya waxaa iskale iiraan baa waxay doonta ka samayn kartaa labo waxay qabsatay waddanka ciraaq la dhaa suu dhan yahay ciraaq wuxuu noqday waddan ay iska leedahay oo markii dhaweyd markii laga baqay inay faraha ka baxaan waxay dhaqaajisay dadkeegii dagaalkanna waxaa keenay maanta dhacay waxa weeyaan waa dhaqaajistii ay dhaqaajisay ee la weeraray safaaradda maraykanka kadibna maraykanku qaasim sulaymaan u dilay arrintana qaasim sulaymaani baa ka dambeeyey marka maraykanku uu ogyahay ciraaq inay tahay meel maraykanka laga hoos saaray oo ciraaq ay gacanta ku qabsatay sidee uga saartay quwadahan sheegi doonaa arrinta saddexaad qolada saddexaad waxa weeyaan waa xisbullah libnaan awoodda ugu weyna ciidanka ka weyn ee ku hanjabtay inay baabi'in karto yuhuudda amba israa'iil waxaa sameeyey iiraan marka waa awood waxay samaysay jasiiratul carab bay ka samaysay markii ugu horreysay awood garaacday aramco dhaqaalaha bariga dhexe ugu culus oo ah sharikadda soo saarta batroolka marka halkaasna waxay ku yeelatay awood aanan caadi ahayn arrintaas marka maxay ku tusaysaa awoodda labaad ay iiraan haysato waxa weeyaan waxay ku fiday projectigeygii mashruuceygii fikirkeygii waxay ku fidisay bariga dhexe o dhan waxay yeelatay gacmo adruc waxa loo yaqaano iyo ku yeelatay bariga dhexe arrinta saddexaad ee quwadda ah ee iiraan ay leedahay waxa weeye iiraan waxay isticmaashaa waxa loo yaqaano almufaawadaat ghayr almuntahiya iiraan waxay taqaanaa in la galo dagaalka nabadda oo ah in la galo heshiis aan dhammaad lahayn waxay taqaanaa sida mufaawadaad aan dhammaad lahayn loo galo sida israa'iil oo kale marka iiraan quwaddeeda saddexaad waxa weeyaan waxaa jira iskuul dhan oo lagu barto sidee loola tafaawudaa reer galbeedka waxaana dhiga duruusta cali raajani waxaa dhigay jiray rafsanjani waxaa dhiga oo ka qayb galay ninkan iminka la dilay waxaa ka qayb gali jiray oo casharada bixin jiray madaxweynaha iminka haysta ruuxaani kuwaas oo dhan oo malafka amba faylka nuclearka iiraan gacanta ku hayay waxayna ku takhasuseen cilmi dhan oo dhahdo almufaawadaatu maca alqarb sidee loola sheekaystaa reer galbeedka way daaliyaan isaguna uu daaliyaa marka waxay barteen in mufaawadaadka la galo waa awood ay leedahay dalkaasi uu leeyahay weyn arrimahaas marka la isku wada geeyo iiraan waxa ay leedahay markaa awood ay bariga dhexe khalkhal ku abuuri karto khalkhalkaas muxuu gaari karaa laba arrimood baa soo baxa maya ma baabi'in karta bariga dhexe laakiin dhaqaalaha bariga dhexe waxay ku celin kartaa 30 sano 4 sano ka hor waa kow labo waxay ta'asiirin kartaa dhaqaalaha dunida marka waxaas oo dhan marka la sugayo waa awood ay dalka iiraan ay leedahay niqaadka dacfiga iiraan leedahay waa maxay iyadu waa badan yahay waxaa ka mid a kow waa dowlad lagu hayo cunaqabatayn labo waa dowlad arrimaha labaad bii'ada ay ku nooshahay aan laga wada ogolayn oo shiico ah oo laga badan yahay oo aqaliyad ah saddex waa dowlad malaaliya oo wadaadda ay xukumaan oo dadku ay ka cabsanayaan marka waxaas oo dhani wax weeyaan waa niqaadu dacf waxaa kaloo niqaadu dacfiya dhaqaalaheega oo aad tarahula gabow uu ka muuqdo waxaa kale oo niqaadu dacfi ku ah in ay jiraan mucaarad aad u fara badan oo shiico ah oo qaar wadaadda yihiin qaarna ayna wadaadahayn oo dowladda ka soo horjeeda marka intaas oo dhani waxay ku tusaysaa niqaadkeyga iyo puwaanfeebaladeeda niqaadkeyga dacfiga oo saasata marka iiraan iyo maraykan dagaalka ay ku jiraan muxuu salka ku hayaa iminka dad fara badan waxay leeyihiin ways ogyihiin soomaalia waxaa jira iiraaniyiintu waxaa jira laba aragti oo la dhahdo taqaatucu lmasaalix iyo tabaadulu lmasaalix labadan fikradood waa inaan aad u fahno dadka markay wax akrinayaan way isku khaldaan taqaatucu lmasaalix iyo tabaadulu lmasaalix af carabi baan ku sheegay maxay ka dhigeen macdaan soomaaliyan waxay ka dhigan tahay danaha labada awoodood waxaan horta hore inigu soo sheegay dagaalku inuu yahay saddex nooc dagaal fikriya dagaal maaniya maskaxeed xarbul afkaar ideeyada afkaar la abuurayo lagu soo tuurayo layska dhaadhicinayo kii jaba uu jabay kii laga adkaadana waa laga adkaaday labo dagaalka danta saddex dagaalka siyaasadda okay maxaa laba ah dagaalka masaalixda
idan dagaalka ugu culus ee lagu jiro fikirka dabadi waa maxay waa interestka waa masaalix antiqiga masaalixdaasi marna way kulmaan marna waa la isweydaarsadaa waa sidaa marka iiraan iyo maraykanku masaalixdoodu may kulmaan oo mayakoo kulma bay wada shaqeeyaanay kala shaqaystaan hana meelaha qaarna iltimaas baa ku dhaco way isku soo dhawaadaanoo waa lagu kala waa la isgalaa mise waa la isla ogyaho adna intaa ku ciyaaran intaa baa ku ciyaari tabaadulul masaalix baa ka dhexeeya masaalixda la kala bedeshaa dad fara badan oo xataa aqoonyahan waaweyna uu ka mid yahay cabdallah nufaysi ninka maaragtay maxaa dhahdaa strategicalka ee kuwaitiga ah waan ku khilaafsanahay wuxuu aaminsan yahay inay iiraan iyo maraykanku isla ciyaaraan oo carabta la waalo si aan nahay anaku dhaadhaaniin aan waxbana arkayn hadallada waan iskaga hadallaa marka qaarkood ama muslimiintaba la waalo maya anu ma aaminsani inuu tabaadul masaalix ka dhexeeyo waxaa ka dhexeeya tabaadul masaalix wuxuu ka dhexeeya iiraan iyo ruushka wuxuu ka dhexeeyaa iiraan iyo ruushka wuxuu ka dhexeeyaa iminka ruushka iyo maxaan ku dhahdaa turkiga marka la eego libiya weerarka uu turkiga kusoo qaadayo doon inuu difaaco tabaadul masaalix baa ka dhexaynaysa isaga iyo ruushka kale laakiin ma jiro wax dhacdo iida anna waan kuu dayni oo tabaadula bayna ruushka bayna maraykanka iyo iiraan maxaa marka iiraan maraykan dhexeeya waxaa ka dhexeeya waxa loo yaqaano taqaatuc almasaalix maxay ka dhigan tahay maslaxadda maraykanka waxaa ku jiray in sadaam la eriyo si uu sadaam u eriyo maraykanku markaa wuxuu sameeyey dadka sadaam kasoo horjeeda oo dhan buu soo ururiyey ingiriiska iyo maraykanka lagu ururiyey kadibna weerar buu kusoo qaaday isagoo raggaa doobadaha ku sida laakiin maraykanka waxaa ka maqnaa inay iiraanno ku jirtay inay sugaysay maalin inay cidlo ku hesho waddanka ciraaq iyadoona markaa maxay diyaarisay dadkeygii oo uu ka mid yahay kuwa maraykanku doobadaha kusoo qaaday oo ah dad islaamiyiin calaa ru'yat shiica oo uu maraykanku soo qaaday markay yimaadeen ee maraykanku qabsaday maraykanku wuxuu adeegsaday marka qaarkood awoodo fara badan oo dadkaasi ay lahaayeen shiicadaasi oo iiraan ka soo dhaqaaqaysay taqaatuc markaa waxaa dhacay dantii maraykanka iyo dantii maxaan dhahdaa iiraan baa ku kulmay ciraaq laakiin waa laisku nabadgeliyey hada taqaatuc almasaalix dhacdaa sidii markii ruushka la eryadayba taqaatuc almasaalix u dhex maray islaamiyiinta iyo muxuu dhex maray maraykanka laislama ogeyn laakiin dan waa laisku danaystay marka isku danaysigaas baa jira taqaatuc baa dhacdaa waxaa kulmaya labadii maslaxadood adna waa ku socotay isna waa ku socday meeshaa lagu kulmay laakiin marka caqli la isticmaalaya siyaasadeed waa laisku yara daynaya waa la isdaynayaa waxaa leeyahay dhibaato weyn kuma geysanayeen ha socdo kana wuxuu leeyahay dhibaato weyn kuma geysanayeen ha socdo marka ay soo gaadha laakiin dhibaato ku geysto waa la joojinaya kana uu joojinaya marka waa inaan caqliga aan garano marka maraykanka iyo iiraan bariga dhexe waxaa ka dhexeeyey taqaatuc almasaalix maxaa keena inuu taqaatuc almasaalix u yimaado waxaa keenaya iiraan waa awood abuurantay waa awood rabta inay wax noqoto waa awood rabta inay wax diido waxna ogolaato laakiin bariga dhexe awoodaha ka jiraayey intaa midna male masarna male sacuudiguna male kuwa kaleetaba iska badaa way baabiceen baba turkigu saasoo kale wuxuu leeyahay awood wax doonaysa awoodda waxna rabta marka waxa caynkaa markay jiraan maraykanku wuxuu la ciyaarayaa taqaatuc almasaalix masaalixda ayaa kulmaysa ee maaha masaalix laysma weydaarsanayo tabaadul almasaalix ma jirto luqadda waa luqad siyaasiya qofku hadduuna luqadda uuna garanayn wuxuu ku dhex baaba'ayaa wuxuu moodayaa inuu wax macnaynayo ma macnayn karaysid haddaad garanayn maxaa u dhexeeya waxaa kulantay danihii iyo waxaa la iswadaarsaday danihii way kulmeen iyo waa la iswadaarsaday waxaa u dhexeeya wax weyn cilmiga siyaasadda marka la diraasiinayo marka arrintaasi waa arrin muhiim weeyaan marka arrintii markaas halkay ku dambaysay maanta waxay ku dambaysay inay iiraan tadakhunto ay intii loogu talagalay ay dhaafto maraykankuna inay u fahanto inuu ilaaway in lucbadan laisla ogolaa sidan loo ciyaaro marka arrinta Saleymaan waxay ahayd risaalad loo soo diray dalka Iiraan muxuu sameeyey risaaladii buu fahmay siduu u fahmay risaaladii wuxuu u fahmay inay dhammaatay amba ay ku dhowdahay inay dhammaato masaalixdii laisla ciyaarayay okay Iiraan markaa maxaa ku waajiba waxaa la tusay nin baa la dilay halisa ninka saddexaad weeyaan ninka saddexaad baa wuxuu ku xigay madaxweynaha iyo guudka hogaamiyaha diiniga ninka saddexaad oo awood badan una u rashaxnaa inuu madaxweyne noqdo ninkaas markaas sidaas halkaa gaarsiisan waa la dilay risaalad culus bahayd in loo diro Iiraan risaaladii bay fahantay
risaaladda markay fahantay waxay samaysay masraxiyad aad u ballaaran oo tiyaatar ah in aaska ninka la dheereeyo ummadda la mideeyo dadkii oo dhan la hoos yimaado hoggaanka diiniga kadibna dadkani waxay rabaan imtisaas in cadhadooda la nuugo istaraatiijiyan marka waxay tuurtay 17 madfac waxayna ku tuurtay meesha ugu halis badan bariga dhexe uu ku leeyahay maraykanku qaacidada ama baaska militaarka waa lagu tuuray maraykanku wuxuu shaaca ka qaaday in qofna laga dilin qofna lama dhaawicin ri gees lagama jabin iiraanna waxay sheegtay min 80 ilaa 150 qof inay dhinteen oo maraykana okay maraykanka waxaa lagu ogyahay arrimaha caynkaasa ma qariyo lianna waa waddan dimuqraad ah dadku waxay doonayaan ilmihiina arkaan inuu dhintay inuu nool yahay marka arrimahaasi waa arrimaha halis weeyaan ma dhacday inay dad dhinteen ma qari karno ilaa maanta ma dhacday inay dad dhiman ma qari karno laakiin waxaan markaan taxliil samayno waxaan leenahay hadday jirtana aad ba u yartahay iiraan marka hubkanay aaday muxuu maraykanka ka qaaday ma masraxiyad baa may hubka iiraan aaday kow waxay aaday in loo ogolaa labo waxay ku tuurtay meel aanan loo ogolayn waa maxay waa qaacido maraykanku leeyahay haybaddii maraykanka iyo taabatay waxay u dhigantaa haybadeedii la taabsaday oo ah Suleymani arrintaas markaa maxay keentay waxay keentay inay ku soo noqoto mas'aladu ka hor intii Suleymani la dilin oo ah inaa lucbadii sida Iiraan rabtay lagu soo noqdo oo ah inaa la yiraahdo wali hada masaalixdii waa wadaagayna taqaatuc masaalix maslaxadeedii wali way jirtaa waxa kale oo ay Iiraan digniin u dirtay Dubai diyaaradaha ka sanaka xalay toole waxa laga yaabaa inay weerar ku soo qaadaan waxay tiri Dubai waxay faraha ka qaadi doontaa dhaqaalaha ay haysato ila abad weligeed taariikhda ka bixi doontaa wadana kale risaalada waa loo diray carab oo dhan waxay ku yaaceen maraykanka waxay dhaadeen Trump baasha dij ciyaarta wadii arkayay dowladda imaaraadka wasiirkeega saan batroolka wuxuu soo saaray amba wasaaradda maaratay batroolka iska dheh wuxuu soo saaray kelmad cajiiba wuxuu yiri xikmadda Iiraan iyo maraykanka waxaan ka sugaynaa inay arrinta dejiyaan markaasi cabsi weyn baa dhacday in halkii hore lagu soo laamo waana lagu soo laamay marka su'aal baan isweydiinaa su'aasha waa ta weeyaan bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha waa tan iyo guuleystay labo maxayna ku dhamaatay masraxiyadii kow waxaan oranaynaa waxaa guuleystay mantiqa Iiraan oo ah maskaxda siyaasiga ee bisel oo afar arrimood ba aad arkayseen kow hadidaad labo dagaal iclaanin shaaca laga qaaday saddex nabad gacan la fiiqay oo nabad loo fiiqay reer galbeedka oo dhan oo maraykanka Israa'iil ku jirin ugu dambeyn inay dowladda Iiraan ay rabto in aanan la gelin dagaal ballaaran oo muwaajaha intii way ku guuleysatay labo maraykankuna isagu wuxuu ku guuleystay inuu ka takhaluso inuu ninkii uu ka takhaluso labo arrinta muhiimka maxay isaguna Trump wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la sheekaysanayo shicibka iyo hoggaanka dalka Iiraan okay marka arrintaas waxa uu oranaynaa waxa guuleysatay maskaxdii siyaasadda institutionada dalka Iiraan waxa laga guuleystay degdegii Trump ee siyaasiga ahayd ee misaajiga ahayd labo waxa laga guuleystay kuwii carabta ee ka dambeeyay ee dirayay maraykanka saddex waxa laga guuleystay kuwii hurinaya dagaalka mooday inuu dagaal haduu dhaco inay Iiraan markay arkeen inuu dagaalkani bariga dhaco dhan uu gaadhayo aqligiiba iyakan u soo laamay marka waxaan leenahay dagaalkii saasbo oo warta uu lugaha ku dhigay arrintaas waxa aan oranaynaa haddaba arrintu halkee u socotaa gabagabadii waxay u socotaa in ay wadanadan khaliijku ay waajib ku tahay siyaasadeed inay Iiraan la heshiiyaan Iiraanna waxaa waajib siyaasadeed ku ah inay la heshiiso sunnaha Iiraan laba khalad oo istaraatiijikal ay gashay khaladka koowaad ee gashay waxa weeyaan dagaalka ay ku qaaday wixii loo yaqaanay tawradaha carabta ee nabadda ahaa markay ka weyday danaheegii way garaacday khaladka ugu weyn ee Qaasim Suleymani uu galana waxa weeyaan inuu isaga ruushku Suuriya ay ku celiyeen ma qabla taariikh wixii taariikhda ku horeeyay iyagoo badbaadinaya ninka la dhahdo maxaa la dhahdaa Bashar al-Assad maxaa yeelay akhlaaqiyan waa dagaal khaldan istaraatiijiyadeed daroogay difaacanayeen arrinta labaad
marka akhlaaqi istaraatiijina waa in la kala saaro arrinta labaad ee iiraan ay ku khaldantay waxa weeyaan mashruuceegani ah mashruucan ah inay shiicanimo uun faafiso oo ay u aragto inay shiicanimadu tahay xal iyaduna way ku khaldan tahay dalka iiraan marka maxaa la rabaa inay iiraan fahanto inay meesha tan lagaga badan yahay laakiin la ogol yahay in la wada noolaado oo la qaato fikradda shanqiidi inta badan uu soo bandhigo oo ah inay carabtu iyo turkidu iyo maxaanku idhaahdaa iiraaniyaagu ay yihiin shimbirka xadaaradda islaamka waxaa dhahdaa xadaarad wal oo adduunka ka jirta dad baa xambaara matalan xadaaradda ortodogoska ruushkaa sida xadaaradda protestaanka maraykanka iyo ingiriiska sida xadaaradda katoliga waxaa sida talyaaniga iyo faransiiska xadaaradda konfusiyoskana jaynaha iyo jabaankaa sida xadaaradda islaamkana waxaa sida carabta iyo turkida iyo inta badan bershiyaanka walidaalika horey waxaa loo yidhi maaragtay caqliga baa la oran jiray xadaaradda islaamku waa furs waxaa la oran jiray xoogga xadaaradda islaamku waa turkiga waxaa la oran jiray lisaanka iyo wadnaha iyo ruuxda islaamkuna waa carabta marka hadday iskhilaafaan qalinkii iyo xooggii iyo maxaanku idhahdaa ruuxdii iyo iyo carabkii waxaa ka dhalanaya dib u dhacnimo muslimiinta kaleetana kuwaas bay hoos imanayaanoo xadaaraddii la sidayaan marka aan dad noqonno haddaan soomaalinahay waxaan noqon karnaa xadaaradda islaamka ee geeska africa laakiin tan aan ka hadlayna waxa weeyaan xadaaradaha waaweyn marka laga hadlayo oo cilmiga lagu baarayo cilmu lxadaaraat wuxuu dhahdaa ninka la dhahdo ninkii qoray kitaabkii maxaa oran jiray sidaamu lxadaaraat shock civilisation amba ninkii kale ee fukayama waxay dhahdaan likulli xadaaratin ummad xambaarsan baa jirta ummad hoggaanka ah marka ortodogosku hadduu joogo bariga iyo galbeedkaba ruush baa aabba ka ah protestanka waxaa ka ah maraykan iyo ingiriis katoliga faransiis iyo talyaani iyo wixii la halmaala marka loo yimaado iyo isbaaniyo marka loo yimaado islaamkana kuwaas baa ka aabbaa kuwii haddii la isku diro xadaaradda islaamka dib ba u dhacaysa walidaalika uu sheeqaaba huntington ninkay dhahdo kaatibka ah wuxuu dhahdaa waxyaalada ugu wacan islaamku inuu hore u mari waayo waxaweyaan saddexdii baa isdiidan waana la isku dirayaa saddexdii markaa sidaas daraaddeed waxaan aaminsannahay inay dowladda iiraan caqli badan ay ku darto carabta waxaa laga rabaa inay daayaan dagaalka ay kula jiraan naftoodu waa maxay waa dagaalka ay kula jiraan fikirka islaamiga ah islaam la-aan carabi waa sifir hore ibni khalduun baa yidhi laa islaam laa carab islaam ma jiro carabi ma jirto carabi horumar ma gaari karta biduuni islaam xataa maxamed ghazali raximahullah arrintaa uu qiray turkidu waxay fahmeen quwaddoodu halka uu ku jiro waa islaamka walidaalika markay dhaqaale sameeyeen iminka siyaasadna sameeyeen waxay ku soo noqdeen inay turaaskii sameeyaan aflaantan filinkan cusmaan la dhahdo ordogro la dhahdo waa filimaan loogu talagalay inaa misaajkii la abuuro dawqii iyo misaajkii se loo fikirayay habka xarbul afkaarkii ayaa la abuuraya markaas saasaa la rabaa inay dadkani ay heshiiyaan qofku markuu horumar inuu gaadho doonayo inuu wax iska celiyo doonayo waa inuu isagu isla heshiiyo waa kow laba waa inuu bii'ada ku meersan la heshiiyo saddex waa inuu caalamka markaa fahmo sida ay wax u socdaan marka iiraaniyiinta waanadaasi muhiim ba u tahay hadday wax doonayaan inay bariga dhexe wax ka noqdaan waxbay noqdeen laakiin siraac abadiya laguma jiri karo waxay u baahan tahay inay kula jirto shucuubta hadhalihiga nabaddaas khaliijkana waxaa looga baahan inay fahmaan alla khaliija biduuni iiraan khaliij ma dhici karaya bilaa iiraan walidaalika waxaad maqlaysiin khaliijka carabta iyo khaliijka farisiga arrintaana waa in xal loo helo khaliijka islaamkaba ha loo bixiyo khaliij magaciisa la yidhaha bas oo ha laga daya bixitaan faris iyo carabiga lianna adduunkana in badan baa tirada waa khaliijkii farisiga in badanna waa khaliijkii carabta waa dagaalkaasina marka ikhwaani fillah waxaa adduunka maanta ka dhacay saas buu usoo dhacay halkaana uu ku gabagabaysmay halkaana wuu aadi doonaa su-aalahana way sii socon doonaan waxaanan filaynaa inaan isla fahnay wax badan waad mahadsantihiin salaaddii casar ayaa madaxan la soo gashay waanu ku fogaanay mowduucan waxaan iga leenahay sidaa iyo nabadgelyo waa qiraa'adaas aan isla akhrinay waxaan jeclaa inaan isxasuusino mowduucii horaan igu sheegnay laakiin diraasiyaroo kale waxyaalada yaab kale oo halkan igu soo baxay waxa weeyaan dadka la xidhiidha boggayga oo iminka boqolkii kun ku dhowaaday oo dhalinyaro fara badana boqolkiiba 65 dadkaasi waa rag weeyaan waxyaalaha cajiibka mid tahay wadaadada boqolkiiba 70 dumar baa dhegeysta
laakiin halkan boqolkiiba 60 rag bay noqotay. bal su'aal aan isweydiinayno dhanka da'da markii la eegay dadka u dhaxeeya 20 ilaa iyo 35 iyaa boqolkiiba 70 ah. 20 jir ilaa 35 35 ilaa iyo 60na waa inta kaleeto iyo wixii ka sarreeya. marka iyaduna waa wax ku tusaya waxa kaleeto oo diraasad markii lagu sameeyay ku jira dadka bogga igu xidhan inay yihiin dad mutacalimiin oo dhalada jaamacadaha dhigta ah oo qaarkood maaragtay mutakhasisiin ku yihiin cilmiga siyaasadda iyo diinta iyo shareecadda iyo dhaqaalaha iyo wixii la halmaala. taasina waa muhiim. arrinta kale ee muhiimka waxa weeye dadka ugu dhageysi badan waxa 20 ilaa 25 boqolkiiba waa banaadir waa maaragtay Soomaaliya, boqolkiiba 20 waa Djibouti, inta kaleetana waxay u kala baxayaan saas bay u kala yaranayaan. waxaa ku xiga maaragtay Somaliland, waxaa ku xiga gobolka shanaad ee Soomaalidu degan yihiin, waxaa ku xiga maaragtay Yurub, North America, in saas oo kale ay u soconaysaa. marka taasina waa tirakoobyadii dadka bogga ku xidhan. waxyaalada bogga dadka ku xidhan iga soo baxay waxaa ka mid ah inay dadka bogga ku xidhani intooda badan ay yihiin dad caqlaaniyiin ah oo maankooga maala oo inta badan aan caatifa iyo laabka hadal aan lahayn oo aan jeclayn waxyaalada dad badan ay jecel yihiin in dadka la galgaalayo la iska hadlo oo dadka la caayo. waxaas shaqo kuma leh. waa dad wada degan, waa dad wada wax baaraya, waa dad waxaan wada akhrinayno insha allah. dad fara badan baa ii soo qora, wax iga soo saxa, wax ii soo sheega, iyakuna aad bay u mahadsan yihiin. marka insha allahu tacaala waan si wada kobci doonaa, hore waan sii socon doonaa. barnaamijka inoo soo socda waxaan kaga hadlaynaa barnaamij lasoo codsaday oo ah haddaan Soomaali nahay sideen u noqonnaa awood taariikhda gali karta. waa mawduuc aad u culus, waa mawduucan meelo badan wax ka soo eegay, lasoo soo akhrinay. Soomaali haddaan nahay geeska Afrika ku nool sideen u noqonnaa awood culus 30 sano ama 40 sano ee soo socota. mawduucaas baan inoo soo socda usbuuca soo socda. waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.